جزيرة مالديفيس بهاماس iyo Hawaii intuba tani waa jasiiradda Koyama mid ka mid ah jasiiradaha ugu quruxda badan ee dalkeena Soomaaliya leedahay waxay ku taalaa gobolka Jubbada Hoose ee koonfurta magaalada Kismaayo jasiiradda Koyama waxay qiyaas ahaan u jirtaa magaalada Kismaayo 45 kiiloomitir kaliya waa goob nabadgelyo badan dalxiiskana ku haboon jasiiradda Koyama dadka degan waxaa lagu qiyaasaa 100 qoys waxay ku qanacsan yihiin deganaanshaha iyo jawiga degan ee deegaankooda ma lahan hospital ama goob waxbarasho waxay ku tiirsan yihiin dadka degan jasiiradda Koyama kalluumaysiga jasiiradda Koyama waxaan dhihi karnaa waa jasiiradda ugu quruxda badan ee Soomaali degto ama Soomaali leedahay laba toban sano soo kaca badan tayna Allah soo fiirna malna waa nasiib waa mar wal hela mar lama helaayo adiga hal biloodan waxa ka shaqeena malnaay kuraha liya marka kale noqod Kismaal geena wal galana al habad ku hisaab habad waa $2 waa marka di boqol haba soo hele in $2 waa $200 waa saan ku soconaya konton haba di hele waa $100 waa marka saas waa badwa maguuran waa barada noloshiyo badwa maguuran waa barada noloshiyo barwaqada salkeediyo bihi nagaashaha badwa maguuran waa barada noloshiyo badwa maguuran waa barada noloshiyo barwaqada salkeediyo bihi iskuulna inta Koyama iskuul male dugsi le waa iskuul male iskuul aan bahana iskuul aan waa dib waa qudheenu hadday mitahay maxaynu laqaatane qabyaalada nooga dhigay qiblada loo wada tukado qurumaha dunida jira yagoo kala qaaraday haddana qaateen midnimo dabeed qanibay noqdeen dhulkoodana lagu qulqulo Soomaalo isku qoysaho afiyo dhaqan qudhaalaho qormiyo meel wada degtana maxaa loo kala qoqob waxaa loo kala qoqobay khilaafkana loo dhexdhigay inay quwadaysano qaxoonti ahaato oo qayrkooday tuugsada qabyaaladu way xun tahay qallooc weeyaan bulshooyi qorshaa lagu meel mare ma wada qaban qaabina wixii talo naga qaldamo